يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaynu uga soo hadlaynay barnaamijkan akhlaaqiyadka wada noolaanshiyaha ee suuratul xujuraat ay ka hadashay. xalqadii tan ka soo horeysay waxaynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaan at-tathabbut fil ma'luuma. Macluumaadka aynu helayno inaynu hubsano aynu noqono bulsho ka hortagta waxa loo yaqaan khuraafaadka. bulsho inaynu noqono ishaacaadku aysan isaga faafin. maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu na amrayo qodobkan muhiimka ah in bulshadu ay noqoto bulsho akhlaaqdan leh kadibna kobacda oo horumarta. maanta waxaynu ka hadlaynaa si khulaasaysan ayadana mowduuc kale ay suuratul xujuraat ay ka hadashay oo Allah subhanahu wa ta'ala noogu asalaynayo inaynu noqono bulsho kobacda oo muhiim ah akhlaaqda wada noolaanshiyaha. xalqadan waxaynu uga hadlaynaa mowduuc la yiraahdo as-sur'a fil islah. waxaynu maqlaynaa wax fara badan laba qabiil oo Soomaaliya ayaa isdagaalaya. waxay iska dilayaan dad fara badan ama colaad soo jireen ayaa ka dhaxaysa. colaadoodu maba istaagtaba. halkan waxaynu isweydiinaynaa dadkii kale ee Soomaalida ahaa limaada ay u islaaxin waayeen. waxaysan qaadan qodobkan akhlaaqdan muhiimka ah bulshadu inay kobacdo oo Allah subhanahu wa ta'ala uga hadlay suuradan aynu niri waxa loo yaqaan as-sur'a fil islah. macnaha in dadku ay noqdaan dad muslixiin ah. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wama kana rabbuka liyuhlika al-qura bidhulmin wa ahliha muslihun. markaynu islaaxa ka hadlaynana dhankaas kaliya ma ahane waa wax waliba oo bulshadeena quseeya. tuug haday wada taagan tahay waxa la rabaa in dadka dhan ay islaaxiyaan oo bulshadu ay takaaful intay samayso ay iska qabato tuugadaas. haday wada ka hadlaysanta inay wadada hagaajistaan, hadii suuqa khiyaano ka jirta ay khiyaanada iska saaraan, micnaha islaaxa hadii fasaad iyo rishwa jiro maxkamadaha haduu ka jiro bahalkii cadaalad in islaaxiyaan waxa kada. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu nooga soo qabtay meeshii u dambeysay oo waxa uu yiri وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إصلاحية معناها وحي كهرية أنواع من باب أولى إن إسك إصلاح سن. هذين نقطة اقتصادك، هذين نقطة الرباضي، هذين نقطة وحولي بقى تعليم تحت هذين نقطة إن إسك إصلاح سن. ما حد كفي ليس إنه الله سبحانه وتعالى النبي أمة أصول دري أو لقالها الله الكيل والميزان. نبي الله شعيب قام إن الله صدر نبي الله لوط dhankii ijtimaaciga inuu ka islaaxiyo waxa kada. marka bulsho islaaxa u taagan inaynu noqono bulsho wax islaaxinaysa inaynu noqono. nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis tirmidhi ku jira warinaya Abu Bakr as-Siddiq waxa uu leeyahay macnaha hadii qoom aragto daalim aysan qaban awshaka an ya'umahum Allah bi'iqaab min 'indihi. dadkaas waxay qatar ugu sugan yihiin inuu Allah subhanahu wa ta'ala ciqaab camima uu ku soo dajiyo. anagana macnaha ciqaabna camima inuu nagu soo dagay la shaka juuc iyo khoof iyo dagaal iyo xurub أهلية عقاب كدرني مجرو وعقاب صعب. لذلك إننا نقول أمة إصلاحها وأرضا. الله سبحانه وتعالى هذا مثلا لبقله معناه قضب كلا أي نقادنا واحد السرعة بالإصلاح بين نقادنا. إنه هذا سيدو كلا نقول الحزم في الإصلاح معناها إصلاح ضد أمة أي كجو أنت إنه واحد إصلاحيا إنه نقول إصلاح سيدو كلا إصلاح مركا إنه آذن إصلاح إنه soo jaangoyna inaynu noqono. oo Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay laba qolaba isdagaashay labadii qol way heshiin weeyday mid kamid ah islaaxay qaadan weeyday. waxa la rabaa taa islaaxa qaadan weeyday inaynu dhamaantayo aynu u kacno oo aynu islaaxa si qasab ah uga yeelsiino aynu tii kale la jirsano. halkan baynu ka qaadanaynaa in daa'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amri Allah. macnaha markaynu wax islaaxinayna hatta haduu dhiig ku daadanayo in dhiiga Allah horo maadaama islaax la وهكذا. معناه إصلاح حتى ما أهن مالها سكر واحد صوني رتني ومن باب أولى وحكى ما من باب أولى أي كتاي. معناها هذا مثل حتى قفك مسلم معناه هالسوقي أنكلية لبقله وين أما وين وحلو إصلاحي هذا حتى أدو مركب مجلس فريضة قف ولالك أو مقنها دي وحلو شيء وحل ربنا إصلاحي. النبي عليه الصلاة والسلام من تأوجه سيس إلى تأوجه كرئيس بي نقنيسا قف مسلمنا أو ولالك أكتيس لو حمنا أما وحلو شيء أو أنا أجر جارين أو أن برتيا وحكو
islaaxin allah subxaanahu wa tacaala mowdic uu jecel yahay inuu u gargaaro ayuusan u gargaarin wahaakada adigana haddii aad islaaxiso الله سبحانه وتعالى وحقوق الجارية في موضع تحب فيه نصرته. هل كان موضوع إن وقف إيدي سننا وحي نريد وحاويان السرعة في الإصلاح وأيضا وحي وقف إيدي سننا الحزم في الإصلاح. أدب ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.